sabtidii abaarihii 10kii subaxnimo ayaa gabadhan la waayay waxaana qoyskoodu ay ogeysiiyeen booliiska gobolka Queensland ee magaalada Brisbane dabadeedna booliisku baaritaano ay bilaabeen waxaana raadkeeda ugu horeeyay gabadhu laga helay petrol station ay ka iibsatay cabitaan iyo shukulaato markaa kadibna waxay sii tixraaceen halka ay gabadhu aaday waxaana cabdifaaxow markii dambe gaarigeeda iyadoo wadatay laga helay meel xadiiqad ama park ama meel dadku ay ku nastaan oo na leh biyo oo buundo kala qaybisa oo ku taala meel aan sidaas uga fogeyn halka gabadhu ay ku nooleed waxaana caadiyan la ii sheegay goobtaas inay ahayd meel ay fadhiisan jirtay mararka qaar oo ay wax ku aqrisan jirtay mar haddii booliisku uu arrinta soo farageliyey oo meydkii gabadha ay soo heleen iyo gaarigeedii boolisku faahfaahin ma ka bixiyey gabadhan qaabkay u dhimatay iyo waxa loo aanaynayaba maya weli baaritaan ayay wadaan booliisku waxaana faahfaahina ma aysan bixin maalmaha soo aadan oo beri ay ka bilaabanaysana waxaa laga yaabaa in booliisku ay si saxa u sheegaan gabadha qaabka ay ku dhimatay si qoyskoodana loo guddoonsiiyey si ay u aastaan ibraahimow gabadhan Naciima Xasan maxay ahayd Naciima waxay Australia timid iyadoo 7 jir ah 20 sano ay halkan ku nooleed 27 jir bay ku dhimatay Allah u naxariiste waxa walaasheeda ka weyn Nasra ay sheegtay inay ahayd gabar aad u wanaagsan oo dhanka waxbarashada ku dadaasha waxa ay baratay kalkaaliso caafimaad isbitaal weyn oo ku yaala magaalada Brisbane ayaa iyada iyo walaasheedu way ka wada shaqayn jireen dhanka kalena waxa ay waday jaamacad oo qaybtii labaad ay baranaysay xilligan ay dhimanaysa Naciima waxa ay wadatay 6 buug ay ka qaadatay meel library ah si ay ugu soo akhristo goobta iminka iyadoo ay ku dhimatay sida ay Nasra iyo xaqiijisay Naciima sidoo kale waxay ahayd gabadh fircoon oo dhanka waalidkeeda iyo bulshada kale ay la nooshahayna ay aad u jeclaayeen arrintan oo kale bulshada Soomaalida horay ma u saameysay oo ma ugu dhacday mise waa kiiskii ugu horeeyay waxaa jirtay wiil Soomaaliya magaalada Perth ee galbeedka Australia hadda ka hor lagu dilay oo la waayay meydkiisa iyo raqdiisa oo booliisku muddo 4 bilood ay raadinayeen markii dambana ay warbixin laga soo siiyay dalka Soomaaliya halka uu meydkiisa yaalo dabadeedna halkaasi loogu tagay lafiisa qoyskiisana lagu wareejiyay la duugay marka dhacdadaas ayaa Soomaalidu ugu horeysay ee dalkan Australia oo aan maqlay amba anigu aan dul tagay marka kiiska Naciima waa kii labaad marka kuma badneen kiisaska noocaana Soomaalida dhexdeeda jaliiduhu kale laakiin anigu ma garanayo